السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب سودة وهذا أصحابته waxay noo socday casharadeenii imtixaanaha ahaa oo aynu ka hadlaynay physics-ka ciwaankiisii ahaa force waxa ay noo sii gabagabaa asxaabay casharadeenii imtixaanaha ahaa haddaba waxaan isla fiirin doonaa su'aal fiidiyoogii hore aan kusoo gabagabeeyay ayaan rabaa inaynu isla fiirino asxaab dad badan waxa weeyaan asxaabta kamid ah oo isku soo dayeen aad baa u mahadsantihiin dhammaan cidda isku dayday haddaba asxaabi waxa weeyaan su-aashani la weydiiyey waxay ahayd sida tan bay ahayd anagoo isticmaalayna asxaabi waxa weeyaan ciwaankeenii ahaa momentumka waxyaalahaynu ka naqaanay ayaan rabnaa inaynu xalino waxaana la weydiiyey asxaabi waxa weeyaan kubad baa maaskeedu waxa uu ahaa baa la yidhi 1.3 kg buu ahaa balayer ayaa wuxuu ka kaxeeyey initial velocity dhan 13 mitir per second ayuu ka kaxeeyey waxa uu gaarsiiyey final velocity gaaraya 22 mitir per second haddii marka saaxiibka uu kubadda u laaday ay ku gaadhay 0.00252 sayb intaa leeg haddii ay ku gaadhay oo second ah intaa haddii ay ku gaadhay waxa soo xisaabisaa baa lagu yidhaahday balayerka laaday kubadda culayskiisa maybe asxaabi waxa weeyaan inay soo bixi karno mass aad iyo aad waxa la yiraahdaa u sareeya inay soo bixi karno waa macquul laakiin muhiimadana waxa weeyaan inaynu isku xiri karno hadba wixiina loo diro iyo waxaynu garanaya ayaa muhiimadeedu taas weeyaan haddaba asxaabi aanu ka faa'iideysanayna xeerkeeni ahaa imbalance oo muxuu ahaa f oo lagu dhiftay t waxa ay la macno tahay change momentum f oo lagu dhiftay t na waxa ay la macno change momentum oo ahaa m oo lagu dhiftay v oo laga jaray m oo lagu dhiftay u haddaba f oo lagu dhiftay t maadaama waxa weeyaan shayga kubaddu ay hal shay ay tahay maasku waxa la yiraahdaa waa isku mid final velocity oo laga jaray initial velocity-ga ayaynu ku helaynaa asxaab force-ga oo ma haysto lagu dhiftay termkeyga waa 0.00252 waxay la macno tahay maaskeyga oo ah 1.3 oo lagu dhiftay 22 oo laga jaray 13 kadibna waxaan leenahay f oo lagu dhiftay 0.00252 waxay la macno tahay 1.3 oo lagu dhiftay تضبط يعني ما محمية سجال ما محل بيه لباطن تضبط ميله وسجال ويان كدنا محل سمينا يا وحنلاقي F أو لو قلنا في 0.00252 وحي لا معناتها هي 1.3 أو لو قلنا في 7 كدنا أنت أمريكان يسكون لفتو وحي يقصوا بحي يا أصحابي وحويان تضبط استعمر لو قلنا لفتو سجال لو قلنا في 1.3 كوية 1.7 laga waxa iga soo baxaya sagaal waxa iga soo baxaya 11.7 yani f oo lagu dhuftay 0.00252 waxa ila macna tahay 11.7 kadib dhinaca kasta waxaan u qaybinayaa 0.0 time waxaan u sii qaybinayaa intaas 0.00252 0.00252 waxa ay soo baxaya force-ga uu ku laaday horta in ay tahay ninkaasi qiimo dhan 4,642.8 newton ayuu ku laaday hadda waxa isweydiin leh aniga force baa hadda xisaabisay maxaa egal aniga mass baa laga rabaa kadib halka markaa maray gadaal waxaan xusuusanayaa weight-kiga oo ahaa weight-ka in lagu heli jiray m oo lagu dhuftay g fiiri waxay oo dhan force-ga isku xiranaya kadibna hadda mass waan haysta oo waa imisa weight waan haysta oo ah la weight-ku iyo force-gu waa isku mid yani 4,642.8 waxay la macno tahay mass-kiga ma haysto laakiin gravity-ga waan garanayaa 9.8
lagu dhuftay 9.8 kadib cagsta maxaan u qaybinayaa 9.8 baan u qaybinayaa waxaan leeyahay 4642.8 oo loo qaybiyay 9.8 waxa ii soo baxaya in maaskiga uu ila mid yahay 4.738 kilogram saxaabe wax weeyaan intaas 473.8 474 kilogram maybe waa dee qof bini aadam inta leeg inuusan jirin laakiinse muhiimadana waxa weeye ifan hadhow haddii lagu diro inaa asxaabi waxa weeyaan qaabkaasi aynu ula soo bixi karno yani waa maxay qaab kasta ha loo dhigo qaab kasta waxa weeyaan asxaabi ha loo dhigo laakiin waynu la soo baxaynaa marka waad waxaan la soo baxaynaa mask forcegeena kadib forcegeena markaynu la soo baxno ayaana waxaan sii aadi doonaa w waxay la macno tahay weight ku hawlo m oo lagu dhuftay g halkaas aan ka soo dhilaan dirsanayna haddaba asxaabi aad buu maasantiin dhammaan asxaabta isku dayda aad buu maasan tahay inta aan isku dayna waxa weeyaan ifan hadhow hadaad aragto ama qiimaha saas oo kale wax saas oo kale ah inaadan hilmaamin inaa waxaaga isku xirxiran kardho aad iyo aad baa u maasantiin haddaba asxaabi aan kasii soconno casharkeena maanta waxaan isla fiirin doonaa asxaabi waxa weeyaan weli waxaynu ku jirnaa saameynta ay leedahay xoog mid waa momentum meeshuu ka imanaya hadda xog waan u qaynaa xagee buu ka imanayaa shay baa la istaajinaya waa la istaajin waayo why maaskiisi iyo velocity-giisii baa batay yani waa maxay shay baa wareegay muxuu wareegay momentum iyo torque baa inuu soo baxay maanta kii ugu dambeeyay baynu ka hadlaynaa oo ahaa shayga waxay ku sabtaa deformation haddaba waa maxay deformation wax weeyaan isla fiirino marka haddaba asxaabta waxa la yiraahdaa a change in shape waxa la yiraahdaa deformation ka maxaa la yiraahdaa definition-kiisu waxa la yiraahdaa waa change in shape due to the application of force yani waa maxay waa in shape-ka la bedesho iyadoo saameyntu ay ka imanayso force baa waxa la yiraahdaa asxaabi waxa la yiraahdaa deformation baa la yiraahdaa hadaba deformation markii shaygu shape-ka u bedelanayo laba qayb baa u jira shaygu plastic-na uu noqon karaa elastic-na uu noqon karaa hodayna waan ku hadlay fiidada hore yani waxaan ku yiraahday qaarkeen baa waxa laga wali inay aaminsan yihiin shayga plastic inuusan lahayn elastic-nimadu waa sifo material kasta oo dunida yaalla uu leeyahay ha lagu kala badno macnaheedu waa maxay shay baa waxa laga yaabaa 80% inuu yahay elastic ay ku badan tahay sifadaas markaas waxa la yiraahday waa elastic weeyaan shay baa laga yaabaa 96% plastic-nimada ku badan plastic baa la yiraahday laakiin shay kasta oo jira waxa uu leeyahay fiidiyowada ugu dambeeyana ku arki doonaa elastic-na uu leeyahay plastic-na yani waa maxay elasticity-na uu leeyahay plasticity-na waa uu leeyahay sabab fiidiyada hore uga soo hadalnay haddaba asxaabi elastic materials-ka marka iyaga laba qaybood weeyaan tan koowaad waa maxay waa spring waa molo ka labaadna waxa la yiraahdaa non spring waxyaalahan spring-ka ahayn oo molooyinka ahayn oo injirka ka mid ah waxyaalahaas oo dhan baa ka mid ah laakiin anigu hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo spring ma rabaa inaan waxaan u soo tafaxaydanayaa spring inaan ka hadlo haddaba asxaabi waxa weeyaan mooladu waxay ka mid tahay waxa la elastic materials-ka ka mid tahay sidoo kale waxay leedahay sifada plastic-nimadana way leedahay labadaba way leedahay yani hore baan ka shaqaan oo kale moola halka taalay mooladaasi waxa leedahay waa la kala jiiday sideedii bay ku soo laabatay haddana waa la kala jiiday sideedii bay ku soo laabatay haddana waa la kala jiiday laakiin sideedii bay ku soo laabatay laakiin way dheeraatay markaas oo kale waa maxay elastic-nimadii way ka baxday plastic bay maraysaa shaygu plastic micnihiisu waa maxay plastic haddaan maqasho waa maxay shayga kan waxa la yiraahdaa haddii shape-ka laga bedelo awood uma laha inuu original shape-kiisu inuu ku soo laabto shay kasta ama waxa la yiraahdaa walax kasta markii xoog la galiyo shape-keedii hore ku soo laaban weyda aanan jabin marxaladaasi waxa la yiraahdaa shaygaasi marxaladii plastic-nimadu galay laakiin shape-ku haddii inta xoog la galiyo oo sifadiisi uu ku soo laaban karo caagada taqaano plastic-nimadeeda haddii intaan xoog intaan galiyo sideed ay ku soo laabato oran maayo shaygan waa elastic waxa leeyahay waa plastic laakiin wali waxa ku jira marxaladii waxay maraysaa elastic-nimaday maraysaa waa sii galiyay shape-keedu kuma soo laaban maxaan leeyahay plastic baa maraya xoog baan sii galiyay way jabtay macnaheedu waa maxay elastic bay dhaaftay plastic bay dhaaftay capture bay noqotay waa maxay elasticity iyo plasticity way dhaaftay capture bay maraysaa yani way jaray inta asxaabi markaynu ka nimaano waxa rabaa inuu kale ka hadalna waxa weeyaan Hooke's law xeer la yiraahdo Hooke's law-gaasi waxa la yiraahdaa wuxuu yiraahday principle of physics that states wuxuu sheegayaa force-ga buu yiri xoog needed loo baahan yahay to stretch or compress a spring waxa la yiraahdaa wuxuu yiraahdaa xooga loo baahan yahay waxa weeyaan walax moolo ah stretched in lagu kala jiido or compressed ama la isku cadaadiyo is proportional waxay
direction approach la tahay distance-ga macnaheedu waxa weeyaan yani hookleed wuxuu yidhaahday moolo kasta ee la kala jiido ama la isku cadaadiyo inta ay kala jiidmanayso ama inta isku ururmanayso waxay proportional la tahay directly la badataa la yaraataa waxa uu yiraahday xooga tusaale ahaan oo kale moolada tan waxa xoog baan geliyay tusaale ahaan oo kale waan jiiday tusaale oo kale 2 newton baan geliyay oo xooga waxay socotay tusaale 0.25 mitir bay socotay tusaale waan ka bedelay 4 newton baan geliyay 0.5 bay noqonaysaa kan marka laba ku dhufto laba imanaya kana waxaan ku dhuftay 4 baan ku dhuftay 16 newton markaan geliyo macnaheedu 4 markaan ku dhufto 1 mitir bay soconaysaa macnaheedu hook wuxuu ku leeyahay force-ga la gelinayo moolo ama lagu cadaadinayo ama wax weeyaan lagu kala jiidayo waxa uu directly proportional leeyahay macnaheedu hadii xoogaasi uu bato walaxdu moolada inta ay dheeraanayso way badanaysaa hadii moolada xooga la gelinayo ay yaraado mooladuna wax yar bay kala jiidmanaysaa buu ku yiraahdaa markaas waxa ka soo baxay qaacidan ee la yiraahdo f waxay la macno tahay k oo lagu dhuftay s f ta waxa la yiraahdaa waa force k-duna waxa la yiraahdaa waa spring constant waxa la yiraahdaa waa number constant oo sugan ay mooladu ay leedahay moolo kasta caan ay u tahay s-na waxa la yiraahdaa distance waa masaafada inta asxaab waxaan filayaa waa inay isla garnay hadaba xeerkan waa isticmaali doonaa f waxay la macno tahay ks hadaba waxa arki kadhaa f waxay la macno tahay minus ks يعني مرنا هو بوزيتيف مرنا وانا بوزيتيف كاس معناه waa maxay waa stretch waa la kala jiiday macnaheedu tan waa maxay waa compress waa la isku cadaadiyay moolada hadii la cadaadiyo original shapeskeedu way ka yaraanaysaa tusaale ahaan oo kale moola waxay ahayd 2 mitir waan jiiday 3 mitir bay noqotay intee waa kala jarday 3 mitir oo laga jaray 2 mitir macnaheedu waa 1 mitir baa ku darsamay tusaale moola 3 mitir ahayd waa isku cadaadiyay 2 mitir bay noqotay macnaheedu waxay noqonaysaa 2 mitir oo laga jaray 3 mitir macnaheedu waa maxay waa minus 1 mitir minus walaas uu ka imanaya macnaheedu markii la isku cadaadiyo shibkeedu ka yaraanaysaa marka inta asxaabay markaynu isla fahanay kaydaasina waxa ku waa constant moolo kasta way leedahay moolo kasta waxa weeyaan way leedahay hadaba waxa is weydiinaynaa mooladaas constantigeeda maxaa badin kara maxaa yareyn kara maxay ku xiran tahay aan isla fiirino kadib calculation-keeda aynu galno hadaba waxaan ku yiraahdaa fiir asxaabay the spring constancy يعني waa maxay spring constancy of any spring moolo kasta depends on waxay ku xiran tahay the following factors waxyaalaha kan hoos ku xiga ayay ku xiran tahay ko type of material war moolada tani walaxda ay ka samaysan tahay maxay tahay waa muhiim way ku xiran tahay labo length of spring moolada dhererkeedu waa imisa tusaale ahaan oo kale kullama mooladu ay dheeraato moolo dheer ay noqoto constantigeedu waxa la yiraahdaa is less buu noqonayaa halkaas baan iska ilaaliyo mooladu kullama ay moolo tusaale kale moolo intaas ah yaadaan soo qaato moolo intaas ah constantiga tan hadii uu yahay tusaale ahaan oo kale 10 haday tahay oo kale kan waxa uu noqonayaa oo kale 5 buu noqonayaa sababtu waa maxay kullama mooladu ay dheeraato waa kullama constantigeedu uu yaraado number of times per unit length يعني waa maxay imisa warwareeg bay mooladu leedahay waayadana waa muhiim oo macnaheedu waa maxay kullama ay badato wareega baasha tan ay saa u badato constantigeedu waxa la yiraahdaa waa more weeyaan kullama ay yaraato wareegaasi waa is less weeyaan constantigeedu diameterkeedu kullama diameterkeedu uu weynaado oo wax weyn mooladu ay noqoto diameterkeedu waa kullama is less ay noqoto iska ilaali hadaba halkaas waa muhiim kullama diameterkeedu uu yaraadona waa more thickness-ka wax leeyahay waa yarkuna kullama thickness-keedu uu weynaado yani waa maxay cufkeedu uu weynaado intay saa u dhan tahay mooladu wax leeyahay waa more constantigeedu weeyaan hadaba asxaabay kuwana waa la badataa kuwana way la yaraataa waxyaalaha ay la badato tusaale ahaan oo kale ka saddexaad kow number of times ku haduu uu bato constantigu waa uu bataa meel ku qoro 5 thickness ku haduu bato waa ay badataa waxyaalaha labana waa la badataa labana waa la yaraataa length ku hadii uu bato waa maxay way la yaraanaysaa decrease weeyaan kana waa maxay waa decrease labada asxaabay waa la yaraataa labana waa la badataa
fiiri lengthku hadduu dheeraado moolada ka dheer tahay constantigeedu way ka yadhahay fiiri sidoo kale moolada ka duuduub badan tahay duuduubku waa maxay dee moolada waxay leedahay wax saa u duuduuban duuduubkaasi moolada ka duuduub badan tahay constantigeedu wax weeyaan waa uu ka badan yahay diameterkeedu kullama moolada wax weeyaan ay ka diameter weyn tahay dhexroorkoodu ay ka weyn tahay waxa la yiraahdaa way ka yar tahay constantigeedu thicknesskeedu moolada thicknesskeedu ay ka weyn tahayna waa ay ka badan tahay constantigeedu inta haddaan asxaab isla garanay bar example aynu ka shaqeyno marka waxa lagu yiraahdaa fiiri 2.5 kg oo mass shay masskiisu uu yahay 2.5 kg ah isahaanka waxa la suray on vertical spring moola ayaa la suray oo ah 50 newton per meter baa la suray haddaba waxa lagu yiraahdaa mooladaasi imis ayay kala jiidmaysaa moolada constantigeeda waa lagu sheegay masskana waa lagu sheegay haddii maxaynu soo xisaabin marka waxaan idhi f waxa ay la macno tahay asxaabay k oo lagu dhuftay s waxa rabaa marka aniga force-na maxaa lagu soo heli jiray asxaabay yani weight ba isku mg waxay la macno tahay k sana waa oran karaa muhiim ma aha force-ga in direct la siiyo iyadoo aan la siin baa la soo bixi karaa masski waan haystaa waa 2.5 lagu dhuftay aan toonba isaga isticmaalo gravity-ga k oo lagu dhuftay s aan isku dhufto 25 waxay la macno tahay k-deeda waan haystaa waa 50 newton meter oo lagu dhuftay s waxay la macno tahay 25 oo loo qaybiyay 50 oo la mid s waxay la macno tahay 0.5 meter mooladaasi marka asxaabay waxa la yiraahdaa waxay kala jiidmanaysaa 0.5 meter taas oo la soo baxaya fiir yani force-ga hadaan lagu siin mg isticmaal masski waa haystaa gravity-gana waa aan 10 isticmaal aniga 9.5 adigu isticmaal hadaan rabto kadibna waxa la yiraahdaa mooladaasi waxay kala baxaysaa 0.5 meter bay kala baxaysaa haddii aan culayska badiyo oo aan ka dhigo taanoo kale 3 moolada waxa weeyaan iyaduna maxay sameynaysaa way sii badanaysaa marka daba asxaabi waxa weeyaan intaana waxaynu isla garanay baan filayaa qaabka anagoo isticmaalayna f waxay la macno tahay ks f ta waa bedelan karaa mg waxay la macno tahay asxaabi ks baa isticmaalaysa haddaan lagu siin sidoo kale maxay isticmaali oo karaa fiir force waxay la macno tahay mg force waxay la macno tahay ma waa isku mid gravity acceleration-kuna waa isku mid labadaba ka rabo ayaan isticmaali karaa haddaba asxaab waxa filayaa inta inaynu isla fahnay haddaba hadda waxaan isla ogaanay information-ka wax laga wado in walax kasta ay leedahay elasticity inay leedahay sidoo kale in moolada lagu helo f wuxuu ku slow oo muxuu ku yiraahday moolada xoog la gelinayo wuxuu directive proportional leeyahay wax weeyaan shayga waxa la yiraahdaa distance-geeda kullama xoog badan la geliyo kullama moolada wax badan ay kala jiidnato constantiga moolada waxyaalaha ay ku xiran tahayna way isla ogaanay hal example-na waynu soo xalinay bar waxaan isla fiirin doonaa marka mooladii qaabka loo xiro marka mooladeedu qaabka moolooyinka loo xiro haddaba asxaabi moolooyinka markii la xiriyo laba qaab baa loo xiraa moolada in loo xiro spring in series iyo in loo xiro spring in parallel fiiri marka mooladu markay saa isu daba taalo asxaabi waxa la yiraahdaa moolada tani waxa la yiraahdaa waa series markay qaabka ay tahay fiiri saa ay taana waa maxay waa parallel labada tan waxa la yiraahdaa waa parallel kuwana maxay isku yihiin series isku yihiin ina isla fahmo keedeeda waxyaalaha lagu helo kristaankeeda waxa lagu helo waan isla fiirnaa laakiin hadda waxa rabaa inaad la ogaato qaabka hadii loo xiro moolada hadda fiiri asxaabi tan waxa ka samaysan tahay 1 2 3 4 5 6 7 kana 1 2 3 4 5 6 yaa la badan tan la badan midba midkii kala la badan tahay asxaabi wax weeyaan way ka adag tahay fiiri marka yani hadda walax mid kasto hadda kaliya ma ahan moolada isticmaali kareemeyno yani waa maxay waxyaalo fara badan baa loo isticmaali doonaa shayga hadduu saa u xiran yahay waa serious haddii saa loo xirna asxaabi waa parallel kan waxa leedahay waa parallel kan waxa leedahay waa parallel kana waxa leedahay labadan waxay isla yihiin parallel laakiin kan labada tan iyo kana waxay isla yihiin serious bay isla yihiin yani shayga haddii saa loo xiro waa serious haddii laakiin saa la soo xirana waa parallel mid kale haddii saa loogu soo xiro labada tan parallel bay isla yihiin labadooda oo isla socda iyo kana serious bay asxaabi isla yihiin bana isla fiirno marka constantiga maxaa lagu helaa marka
hadaba asxaabi consistency shayga markaan xisaabinayno waxaan ku helaynaa sida tan fiiri haddii ay baashu ay tahay serious asxaabi k oo loo yaqaano serious waxaa ku helaysaa hal oo loo qaybiyey 1 oo lagu daray k1 lagu daray 1 oo loo qaybiyey k2 lagu daray hal oo loo qaybiyey k3 intaa haysato oo dhan u dhig tusaale halka moolaan haystay mooladaasaan haystay waa dhamaatay moola kala bilaamatay waa dhamaatay moola kala dhamaatay waa bilaab kan kaliya tusaale ahaan oo kale waxay ahayd 2 kana waxay ahayd tusaale oo kale ma kan waa hal tana waxay ahayd 4 tusaale newton meter markaas waxa la yiraahday maadaama ay serious saan oo kale hadda waxa lagu yiraahday shaygaasi waxa moolo 3 xabo oo moola fiir waxa lagu yiri 3 xabo oo moola ayaa waxa loo xiray si serious ah tan koowaadkeedu waa inta tan labaadkeedu waa in 1 tan saddexaadkeedu waa 4 baa lagu yiraahday inta iyadoo loo wada xirxiray baa la yiri waxa moolada gadaal lagaga sii xiray tusaale shay culeyskiisu uu dhan yahay sida kii hadaayo oo kale 2.5 kg waxa soo xisaabisaa baa lagu yiraahday moolada tan inta ay kala jiidmanayso dib maxaa lagu helay f waxay la macno tahay kx ama ks waa isku mid x hadaan qaato waa isku mid hadaba waxa is weydiin leh de kay ma haysto ko waxa imisa kay baan haystaa ko labo saddex kay baan haystaa waa inaan la soo baxaa marka kaydida waa inaan mideeyaa sidee baa u mideyn karaa baashaydu waa serious waa inaan ku helaa aan dhahaa waxaan ku helayaa hal oo loo qaybiyey 1 oo loo qaybiyey k1 oo macnaheedu ay la dhiganto hal oo loo qaybiyey hal lagu daray kayga labaad waa imisa meelka koowaad waa hal oo loo qaybiyey 2 lagu daray hal oo loo qaybiyey hal lagu daray hal oo loo qaybiyey 4 oo la mid ah hal markii loo qaybiyey waa 0.5 lagu daray 0.25 oo lagu daray hal macnaha hal de laba u qayb waa 0.5 hal oo hal u qaybi waa hal hal oo 4 u qaybi waa 25 isku dar waa 1.75 fiiri 1.75 kadana maxay la 1 oo loo qaybiyo 1.75 baan haystaa marka kadana waa maxay waxaan sameynayaa wax la soo xisaabso kadibna qiimaha ay la dhiganto issue sidoo kale maxaan sameyn karaa inaan tusaale ahaan oo kale aan common factor LCM inta u raadiyo aan dhaho lambarka ugu weyn waa leedahay waa 4 waxa u qaybisaa 2 waa 2 oo lagu daray 4 lagu daray 4 oo qaybi waa hal isku dar waa 7 oo loo qaybiyay 4 waa 7 oo loo qaybiyay 4 marka maxaa leeyahay waa hal oo loo qaybiyay halkaas weeye sare loo qaybiyay 7 oo loo qaybiyay 4 waa isrogaysaa oo maxay la macno tahay 4 oo loo qaybiyay 7 hadda waan haystaa marka يعني waxaan leeyahay f-tana maxaa lagu heli jiray m oo lagu dhuftay g waxay la macno tahay baan leeyahay 4 oo loo qaybiyay 7 oo lagu dhuftay x maaskigana waxa la yiraahdaa waa 25 waxay la macno tahay 4 oo loo qaybiyay 7 oo lagu dhuftay x dhinaca kasta 7 ku dhufo marka xalli 7 dhinaca ku dhufo dhinacana 7 ku dhufo intaasi waxa la yiraahdaa 35 3 baan wataa 7 4 ku dhufo 12 15 145 waxay la macno tahay forex dhinaca kasta forex qayb dhinacaan forex qayb yani waxaan ula daleeyahay kaydaadu serious hadii loo xiro waa inaad sa u soo xalisataa yani waa ma asxaabi waa inaad qaabka u soo xalisataa waa hal oo loo qaybiyay 1 oo loo qaybiyay k1 lagu daray hal oo loo qaybiyay k2 lagu daray hal oo loo qaybiyay k3 intay doonto ha ahaato waxba kaama galaadka intay doonto ha ahaato qaabkaas ula soo baxaysa waa markay tahay serious barrel hadii ay tahay asxaabi tusaale moola halka la geliyay saasa la yiraahday saasa la hadhoona halkaas labadooda dhan shay baa la suray 2.5 kg baa la suray parallel bay ugu xiran tahay soo kan waxa la siiyay 2 kana waxa la siiyay 3 soo xisaabi la yiraahday force-ga waa maxay walaxdaas inta kala jiidmanayso maxaa sameynaya df waxay la macno tahay kx f na maxay la macno tahay mg waxay la macno tahay k oo lagu dhuftay x maaska waan haystaa waa 2.5 ku dhufa 25 waxay la macno tahay k1 haystaa waa parallel caadi suuqeeda 5 oo lagu dhuftay x oo la mid ah 5 x waxay la macno tahay 5 mitir asxaabi waxaan ula dilayaa marka fiiri hadii ay serious ay tahay waa 1 oo loo qaybiyay 1 loo qaybiyay k1 lagu daray 1 oo loo qaybiyay k2 lagu daray 1 oo loo qaybiyay k3 ilaa intii doonto ha ahaato sii wad hadii caadi tahayna waxa leedahay parallel ay tahayna de waa k1 oo lagu daray k2 lagu daray k3 lagu daray k4
asxaabi waxa weeyaan qaabkaasi baynu u xalinaynaa haddaba asxaabi waxaan filaya inaynu isla fahnay serious markaynu xirno bahasha ay dhahaan moolada parallel markaynu xirno qaabka inuu xalino haddaba asxaabi waxa weeyaan qaabkaas waxa weeyaan baynu u xalinaynaa haddaba asxaabi cashirkeena maanta waxaynu ku ogaanay keliya moolada baynu ka hadalnay deformation waxa laga wado waxyaaluhu inay laba shay yihiin plastic iyo elastic inay yihiin sidoo kale mooladii baynu ka hadalnay moolada waxaan ku leeyahay ks baa lagu helaa kx na waa lagu helaa esta ama xtaasi waa distance-ga weeyaan sidoo kale waxaan ku yiraahday kaydaasi waxyaalaha ay ku xiran tahay waynu ka hadalnay qaababka haddii loo xiro qaabka aad totalkooda ula soo bixi lahaydna waa isla hadalnay haddaba asxaabi waxa weeyaan videogeena maanta intaasaan kusoo gabagabeynaynaa haddaba asxaabi intaynu kulmi doono videokiisa xiga oo aynu ka hadli doono aan sii dhamaystiri doono hadduu ilaahay qadar deformationka waxyaala la xiriira oo stress iyo strain iyo sidoo kale aynu ugula hadli doono farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan shayga markuu plastic uu yahay elastic markuu yahay waxyaalahaas oo aynu ka hadli doono intaynu kulmi doono asxaabi videogaas waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaan illah